habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa xog faafiye waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn ee warka caawa aan idin haynana waxaa ka mid ah shir looga hadlayo shidaalka Soomaaliya oo la shaaciyo waqtiga la qaban doono iyo halka lagu qaban doono dawladda Soomaaliya door nuucay ay ku leedahay warbixin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa waxaa kaloo daawan doontaan xiisad dagaal oo Muqdisho ka taagan iyo duqii hore ee Muqdisho Thabit Cabdi oo digniin culus ka soo saaray muxuu ku leeyahay arrintaas warbixin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa dawladda Qatar waxay shaacisay sirta ka dambaysa cadaadiska la saarayo dawladda federaalka ee ku aadan arrimaha siyaasadda dibadda maxay kala jeedaa arrintaasi yaa kiiskaas ku leh warbixin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa haddii eeb uu ka raali noqdo Kenya oo gubtay alaab ganacsi oo ka timid Soomaalida iyo xiisadda oo ka sii daraysa door noocay ay Kenya arrintaasi ku leedahay warbixin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka habeenimo ee xog faafiye fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro oo rukuma wararkeena si akhbaaraadka ugu dambeeya aad ula socotid mar kale iyo u diyaar garooba la socoshada qodobada aad in ballan qaaday oo dhameystiran aynu ku bilaabnay shir looga hadlayo shidaalka Soomaaliya ayaa la shaaciyay in la qaban doono xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in dalal Soomaaliya xiriir dawlo leh lagu qaban doono shirar looga hadlayo shidaalka Soomaaliya shirarkan ayaa waxaa lagu qaban doonaa dalka Turkiga iyo Mareykanka sida uu shaaciyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabduqaadir Hilaal kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wasiir ku-xigeenka ayaa tilmaamay in shirka koowaad uu ka dhici doono dalka Turkiga isla markaasna ay ka qayb gali doonaan shirkado laga leeyahay dalkaasi kuwa oo mar labaad lagu qaban doono dalka Mareykanka Maxamuud Cabduqaadir Hilaal ayaa shaacin waqtiga rasmiga ah ee la qaban doono shirarka looga hadlayo shidaalka dalka Soomaaliya kaasi oo ka qayb galayaan shirkado daneynaya shidaalka dalka isla markaasna laga leeyahay dalka Turkiga iyo Mareykanka dawladda Turkiga ayaa si aad ugu dhow dawladda Soomaaliya iyada oo Mareykankana lagu xaqlinayo in baasaboorkooda uu wato madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu dhawaan meel mariyay sharciga batroolka Soomaaliya oo dood badan ay ka taagneed iyada oo dawlad goboleedyaduna ay ku doodayeen in aan laga talagelinin sharcigaasi ansixintiisa lama xaqiijin karo in dawlad goboleedyada ay ku qanci doonaan beecan iyo shirarkan dawladda Soomaaliya ay la shirtagayso oo ku aadan in dawladahaas ay kala hadasho arrimaha qodista shidaalka Soomaaliya dhinaca kalena xiisad dagaal ayaa ka taagan magaalada Muqdisho iyada oo ka hadlay duqii hore ee Muqdisho Thabit Cabdi gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay xiisadda dhulalka dawladda ee ka dhalatay ee ka taagan xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho waxa uu ku baaqay in si degdeg ah oo nabadgelyo ku dheehan tahay loo xaliyo xiisadda isla markaasna aan la hareer marin isla markaana aan loo bareerin daadinta dhiigga shacabka duqii hore ee Muqdisho ayaa sheegay in arrimaha dhulka danta guud ee dawladdu leedahay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaana uu ku baaqay marka dawladdu u baahato in guddi loo xil saaray ay si nabad ah dhimrin leh u wajahan oo mar walba wadada nabadda loo maro si uusan dhiig badan ugu daadan gaar ahaan xasaradaha ka taagan soonaha jaamacadaha ilaa ex-control afgooye oo galankii dambe ee shalay israsaseen ay ka dhacday waxaa lagu jiraa dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadaan waana laga fiican yahay in dad shacab ah oo ku barakacsan dagaal dhiig ku daato aniga hubo in arrintaasi wada hadal lagu dhameyn karo ayuu hadalkiisa sii raaciyay Thabit Cabdi duqii hore ee Muqdisho ahna hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka waxa uu ku baaqayaa in waan lagu xaliyo isla markaana loo tiro maadaama aan sinna la isku huri doonin sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in dhulka danta guud ee dawladdu u baahato in ay ugu adeegto shacabka Soomaaliyeed waxaana habboon in loo maro wada nabdoon oo abuurin rabshado iyo xasilooni daro maadaama qofka deganba uu yahay muwaadin la doonayo in uu loogu adeego Thabit Cabdi Maxamed ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dawladda Soomaaliya ay si gaar ah u wajahdo arrimahaasi xiisad dagaal ayaa ka taagan xaafadda jaamacadaha ee magaalada Muqdisho taasi oo dawladda Soomaaliya muddo ay u qabatay in dadka halkaas ku nool isaga barakacaan balse dadka deegaanka oo qaab ciidan u abaabulan ayaa sheegay in arrintaasi go'aankaasi aysan aqbali karin maadaama xukuumadda wax kale oo qorshe ah oo istaraatiijiyadeed ay u dejiso aysan jirin goobaha danta guud ee dadka hore looga raray waxaa ka mid ahaa wakaaladda biyaha oo ku taala isgoyska Banaadir iyo sidoo kale wasaaradda beeraha oo ku dhagan xarunta dambibaarista CID-da kuwaas oo muddo 5 sano ka badan cidlo ah oo ay dawladda dhisan wax shaqaana lagu qaban iyada oo dadka shacabka deganaayeen laga barakaciyay
madaxa faafiya la socotaan dowladda Qatar waxa ay shaaca ka qaaday sirta ka dambaysa cadaadiska ba'an ee lagu hayo dowladda federaalka dowladda Qatar ayaa shaacisay sababta ka dambaysa cadaadiska saaran dowladda Soomaaliya oo saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Abdulrahman oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Qatar uu sababay in dowlado badan cadaadis saaraan dowladda Soomaaliya wasiirku waxa uu sheegay in dowladihii xiriirka u jaray sanadkii 2017 ay cadaadis saarayaan dowladda Soomaaliya isaga oo sheegay in ay ka doonayaan in ay Qatar xiriirka u jarto dowladda Soomaaliya wasiirka waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Qatar ay ka aamustay go'aanadii ka soo baxay shirka madaxda jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka ku yeesheen dalka Sacuudiga waxa uu yiri dalalka nasaaray xiriirada waxay ku cadaadinayaan dalalka gobolka in ay naga soo horjeestaan sida Soomaaliya loo cadaadinayo xiriirka ay nala leedahay ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar dowladda Qatar ayaa go'aan dhexdhexaad ah dowladda Soomaaliya ayaa go'aan dhexdhexaad ah ka qaadatay xiisadda wadamada qaliishka ee sanadkii 2017 iyada oo ay u janjeertay dhanka dowladda Qatar taasi oo keentay in cadaadis ay la kulantay dowladda Soomaaliya villa Soomaaliya ayaa marar badan isaga daba noqday dalka Qatar waxaana wali fulin ballanqaadkii iyo mashaariicdii dowladda Qatar shaacisay in ay ka hirgelin doonto gudaha Soomaaliya dowladda Qatar waxa ay sidoo kale sheegtay in muhiim ay tahay in dowladda Soomaaliya ay garab istaagi doonto balse walow natiijadaasi aysan wali waxba ka soo ifbixin dowladda Soomaaliya ayaa markii cadaadiska ay kala kulantay wadamo badan waxa ay go'aan ku qaadatay in ay dhexdhexaad ka noqoto siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan midda qaliijka oo xiisad baan ay u dhaxaysay wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo xulafadooda iyo dowladda Qatar oo in badan go'doon la galiyay iyada oo diyaaradda Qatar Airways ay si caadi ah u isticmaalaysay hawada Soomaaliya taasi oo sheegtay dowladda Soomaaliya in ay go'aankeeda ku timid arintaasi walax faafiya nagala socotaan dowladda Kenya waxa la sheegayaa in ay gubtay alaab ganacsi oo Soomaaliya ka timid iyada oo xiisada ka sii daraysa dowladda Kenya ayaa qaaday tallaabo kale oo sii xumeyn karta xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ku taagnaa hal lug dowladda Kenya ayaa dab qabadsiisay alaab iyo raashin ku fadhiyay $55,000 oo ay lahaayeen ganacsiga Soomaaliyeed sida ay xaqiijiyeen odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada Mandera alaabtan ayaa ganacsi ahaan looga keenay dalka Soomaaliya waxaana hor istaag ku sameeyay ciidamada dowladda Kenya ee ugu dambeyn kuwa uu gubay arintaasna ay agabkaasi oo ay lahaayeen dad Soomaaliyeed odayaasha Mandera ayaa sheegay in ay dowladda Kenya joojisay in badeeco laga soo gudbiyo xuduudda ay la wadaagtay Soomaaliya tan iyo markii ay afduubtay dhaqaatiirtii u dhashay dalka Cuba badeecada ay gubtay dowladda Kenya ayaa waxa ay ku qabteen tan iyo markii ay ka dhalatay bisha barakeysan ee Ramadaan iyada oo xuduudda si aad loo adkeeyay waxaana meeshaas ka cad in aruurinta alaabtaasi ay ka horeysay amarka dowladda Kenya ka soo baxay ee ahaa in Kenya laga soo gelin karin alaab ka timid Soomaaliya oo uusan la socon qofkii lahaa sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in dowladda Kenya ay xariiraad saartay goobaha ay Soomaalida ka soo saaran jireen dhagaxaanta taasina ay saameyn ku yeelatay fursadihii shaqo ee la heli jiray arintan ayaa ku soo aadaysa xilli aad u sii xumaanayo xiriirka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii Kenya ay qaaday tallaabooyin muujinaya in ay doonayso in ay isaga hor imaadaan Soomaaliya iyada waxaa xusid badan in dowladda federaalka aysan ilaa iyo hadda qaadin wax tallaabo ah oo ku wajahan falka isa soo taraya ee ay Kenya ku cadaadinayso villa Soomaaliya xilli laga digayo in go'aano kale oo dowladda Kenya ay qaadato arintan ayaa sii sababtay in ay muhiim tahay in dowladda Soomaaliya jawaab kale oo ku aadan arintan ay bixiso ugu dambeyntiina golaha ammaanka ma gelin ayaa la leeyahay Soomaaliya jabtarka toddobaad ee waxa uu ka digay in heerkaasi la gaaro golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan qoraal ka soo saaray xaaladda Soomaaliya ee dhanka siyaasadda amni iyo xataa waqtiga ciidamada AMISOM waxaana sidoo kale jirtay in ay ka digeen xaalado khatar ku noqon kara nabadda iyo amniga dib u celin kara Soomaaliya golaha ammaanka meelna kuma sheegin in Soomaaliya ay iminka ku jirto xaalad khatar ah oo keeni karta in loo adeegsado jabtarka toddobaad laakiin waxa uu leeyahay haddii sidan wax loo qorsheeyay lagu guuldareysto waxa ay xaaladda nabadgelyo iyo midda amniba isku bedeli kartaa mid khatar ah oo keeni karta in uu golaha ammaanka adeegsado jabtarka toddobaad qodobkiisa ama artikelkiisa 39
chapterka 7 ama article 39 ee golaha ammaanka waxa uu xadidayaa jiritaanka xaaladda khatarta ahi iyo midda amni oo meel looga dhacay nabad iyo fal gardarro ah markaasna ayuu xadidayaa cabirka go'aanada laga qaadanayo sida ku qoran qodobka 41 iyo kan 42 oo ah ilaalinta iyo soo celinta nabadda iyo amniga caalamiga ah sida uu xeerku ammaanka golaha ammaanka sheegayo iyada oo laga duulayo cutubka aan soo sheegnay qaramada midoobay waxa ay soo jeedinaysaa waxa ay ugu yareynaysaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah in ay dedejiyaan horumarka ku aadan xal siyaasadeed oo waara oo ay ku jiraan heshiiska awoodda iyo dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka 2 sameynta hay-ado dawli ah oo howsheedu tahay korjoogteynta 3 kala saaridda mas-uuliyadaha iyo kaalinta ciidamada amniga waxa uuna goluhu ugu yeeray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah in ay qorsheeyaan amniga doorashada iyaga oo ka kaashanaya AMISOM UNSOS iyo UNSOM si ay u dhacdo doorasho loo dhan yahay oo nabad iyo xor ama xalaal ah qof walba iyo codkiisa 2020 ilaa 2021 golaha ammaanka waxa uu rajo ka qabaa in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ka wada shaqayn doonaan hirgelinta 3daas qodob si looga fogaado in Soomaaliya ay gasho xaalad khatar ah keeni kartana in golaha adeegsado ama uu u baahdo chapterka 7 qodobkiisa ama article-kiisa 39 ee arintan ku howlan gudahaan daawadayaal warka habeenimo aad kala socoteen xog faafiye stuudiyaha magaalada Muqdisho waa naga intaa wararkan iyo kuwa kale xiiso leh waxaad dib uga heli kartaan boggeena YouTube-ka tan iyo kulanti dambe nabadgelyo